warkii oo fidsan dawladda Jubbaland ayaa wada qorshayaal lagu horumarinayo waxbarashada waxaana la dardargeliyay inta badan iskuulaadkii magaalada Kismaayo sida afaanta warkan inoogu sheegayso wariyeena Najma Ismaan Yuusuf iskuulaadkii waxbarasho ee magaalada Kismaayo ee burburay dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray qaar badan oo kamida hooy u ahaan jirtay dad rayida ayaa intooda badneed dib loo dayactiray ayadoo arintan ay iska kaashadeen dawladda Jubbaland iyo qaar kamid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo iskuulaadkii hore u dayacnaa ee diburiska lagu sameeyay waxa kamid ah iskuulka qasabka Farjano Ganaane Rugta iyo iskuulaad kale kuwa oo dhamaantood loo dhisay si qurux badan waxbarashadu waxay kamid tahay aasaaska nolosha bulsho aan wax barana dunida waa ay ka hartaa dawladda Jubbaland ayaa xooga saaraysa sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashada iyadoo madaxweynaha dawladda Jubbaland uu shaaciyay in dib loo howlgelin doono dhammaan iskuulaadkii dawladda isagoo ugu baaqay dadka degan in ay isaga guuraan qaar kamid ah maamulayaasha iskuulaadkii aan maanta booqanay ayaa inooga warbixiyay xaaladda iskuulaadkaasi ayagoo dhinaca kala sheegay in ay jiraan dhul banaan oo kayd ah oo iskuulaadkaasi lahaayeen oo ay dad shacab ah dageen bismillaahir rahmaanir rahiim iskuulka Rugta wuxuu kamid yahay iskuuladii la dhisay sanadadii 1968 ilaa 58 meelahaas lagu qiyaasaa waxa dhisay qolooyin Peace Corps la jiray oo marka wadanka ka shaqeynayay oo Mareykan ahaa marka xarfaha iskuulada ka dhisayeen ayuu kamid ahaa iskuulkan wuxuu u dhisan yahay marka la fiiriyo xarafka iida ayaa marka hore halkan ka dhiseen xarafka iida ayaa halkan ka dhisnaa meelo kalena B iyo C iyo sidoo kale ay ka dhiseen dawladii dhexe ee Soomaaliya markii ay jirtay ayaa waxa lagu daray qaybaha dambe ee gadaal ee aan arki doono iskuulka ayaa lagu daray wuxuuna marka ahaa dugsigii sare Rugta gobolada Jubbooyinka ayuu kamid ahaa kadib burburkii markii uu dhacay iskuulka Rugta wuxuu kamid noqday iskuuladii hoyga uu noqday qaxootiyadii ka yimid muxuu ahaa gobolada dalka Soomaaliya burbur fara badan ayaa ku dhacay iskuulku uu burburay muxuu ahaa qaxooti fara badan ayaa degay aakhirkii wuxuu noqday camp dhuxul oo dhuxusha lagu dejiyo ku noqday iskuulka marka dib ayaa insha Allah muxuu ahaa 2005tii aan u furnay annagoo marka kaashanaynay hay'ad la dhijiray Kanaba xarun Kanaba ururka Kanaba la dhijiray marka sida hadda muxuu ahaa halkaas ka arkaysaan dayactir fara badan ayaa iskuulka lagu sameeyay kulle iskuulka waa shaqeeyaa waa iskuuladii dawladda waxbarashadiisuna way fiican tahay waxyaabo badan lagu soo kordhiyay uu jira oo koow ka yahay dhismahan quruxda badan ee aragtaan bishii 8aad waxa qaybta dugsiga sare loo dhisay 4 galaas la qalabeeyay oo si fiican loo dhisay barandale safiitale runtii aad bayna uga qayb qaadatay habsami u socodka waxbarashada iskuulka Farjano arintaas oo runtii dhiirigelin dugsi hoose dhexe sare ayuu ahaa kadib burburkii kadib iskoolaadka ay dadka barakacyaasha ay iska degeen ayuu kamid noqday marka dad qaxooti ayaa in badan deganaa ilaa muddo oo 20 sano ku dhadhow kadib markii 2015 bilowgeedii ma 2014 ayaa iskoolaadka qaybo kamida ayaa laga saaray dadka qaxootiga ahaa waxa iska kaashaday maamulka Jubbaland iyo jamciyadda Tawfiiq inay qaxootigii ay meeshan ka saaraan meelo kale oo ay Jubbaland u qorshaysanayeen in qaxootigii la geeyo madaxweynaha dawladda Jubbaland oo dhawaan hadal ka jeediyay munaasabad lagu dhagax dhigay iskuul loo dhisi doono hab casri ah oo laga hirgelin doono magaalada Kismaayo ayaa ku amray dhammaan dadka degan iskuulaadkii dawliga ahaa in ay isaga guuraan isagoo sheegay in dadka dhistay iskuulaadka dawladda ama dhulkii ay keed ahaanta u lahaayeen iskuulaadka laga saari doono xitaa haddii ay guryo dabaqyo ah ka dhistaan la burburin doono amnigu waxbarasho ku jira 2016 iyo mas'uuliyadda la qaban waxbarashadii ku jirta haddaad dhalinyaro fayo u hesho waxaad ogaataa
inaad gaari karayso danta aad leedahay iyo waxa aad doonayso. haddaad dhalinyaro waxbarasho ay u dirto oo ay iskuul ku mashquulaan, shabaabna ka aadi maayaan, cidina ku adeegsan mayso, dhibaato kalena ma gelayaan. waxay noqonaysaa ilmihii inuu waxbarashadiisa ka fakero, iskuulkiisa ku mashquulo, waxa uu ka hadlaya noqoto qalinka iyo buuggii. waxbarashadii maanta jirtay iyo iskuuladii, dowladdii dhisnayd ee Soomaaliya dhulka ugu badan waxaan odhan karaa waxbarasha iska lahayd. maanta maxaa yaala? kulli waa basiibo. iskuulkii waa la dhistay, darbigiisi intii la fujiyaa meel kale lagu dhistay, xaggana la yeelay, waa dhula la mulkiye wey. markaad u timaadaad ka kac tiraadana waxaa lagu leeyahay anigu igu soo duulo dhulkaygiibu qaadanaya. war goormaad yeelatay? 20 sanaan deganaa. waxaan rabnaa inaan hadda isu sheegno oon mikrofoonkan ka sheego dhulalkii iskuullada ee Kismaayada hadda aan joogno ku yaala iyo dhul walba iskuul walba intii u banaanayd ee reserve uu lahaa, haddaba waan idiin sheegayaa waa la banaynayaa. hadduu guri kasta oo dabaqi ka dhisayna waa la duminayaa. dowladda Jubbaland ayaa xooga saaraysa sidii loo tayeelan lahaa waxbarashada, isla markaana deegaan walba oo ka tirsan Jubbaland loo gaarsiin lahaa waxbarasho, maadaama muddadii uu dalku burbursanaa ay bulshada reer Jubbaland la degtay waxbarasho la'aan.